وحسنا دعاء ولبها بينك كالبرة بش شعبان ليلة النصف من شعبان محاكو صار ريد دليل خاصة حديث ترمذي ورنا من حديث عائشة وحسنة النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك والمشاحن هذين كابش شعبان أي كلا بركة إلهي بسماه سكوا سودجية وسودجتان السجا وقارون كمخلوق الله مذهين wuxuu u dhaafayaa khalqigiisa oo dhan buu dambi dhaafayaa qofka gaalka ah uma dhaafayo qofka mushaaxinkaana uma dhaafayo mushaaxinku waxa weeye qofka naxli iyo nacaybsiyo walaalkii ugu jiro ciil iyo carab badan qaba ciil qabe oo cuqdad badan dadka u haya bal arrinta khatarteeda qofkii gaalka ahaa liiskiisi la raaciyay gaalkii looma dambi dhaafayo kii walaalkii u caraysnaa ciilka u qabayna looma dhaafayo inteeba inaga ciil iyo carab ka maranba يا عداوة ولالكي وهيو إلا من عصمه الله عيد إلى هاي ولاليه مويا وعذر نقول بدن إنك استغفر صداسي أي شرتو هبين والبا صحيح وحا كسو قال النبي يقول عليه الصلاة والسلام إلهي هبين والبا ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير في ثلث الليل الآخر هبين والبا إلهي السماء سكوسو دقاه marka saddex meelood oo meel ay ka hadha habeenka waqtigaas salaatu leylka loo kaco 4 saacadood dambe ilaahay wuxuu leeyahay hal min mustaghfirin fa aghfir lah ma jira mid dambi dhaaf weydiisanayo anigu aanu dhaaf hal min daa'in fa astajib lah hal min sa'ilin fa u'tiyah ila an yadlu al fajr ya wahibariya ya ansiya ilaahay subhanahu wa ta'ala taasuu addoomaha u yaboohaya ciddii fursaddaa ka faa'iidaysataa horumar weyn iyo aqbaliyo ijaaba u dhowday